shilkii diyaaradeed ee maalintii axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Itoobiya oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxaa in muddo ah ka soo shaqaynaya diyaarado ay dibadda ka soo kireysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay maadaama aysan shaqaynin shirkadii diyaaradaha Somali Airlines. diyaaradaha haddaba dalka ka soo shaqaynaya waxaa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyey dalkii hore loo oran jiray midowga Sofiyeeti. diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan balse weli ku duula hawada Soomaaliya iyagoo xamuul qaada ayna kireystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista dawladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duuga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midowga Sofiyeeti iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan 2 jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha hawlahoodana u joojiyaan. galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sanadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyay dalkii hore loo oran jiray midowga Sofiyeeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sanadkan markaas oo ay ku ekayd fasax ay dalkan uga shaqaynayeen isla markaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. haddaba warqadaasi waxay si gaar ah u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyay midowga Sofiyeeti gaar ahaan kuwa loo yaqaan Antonov oo samayskooduna kala yahay Antonov 24, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 12 kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. warqadaasi ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu ilduufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. waxayna hay'adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyadjab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duuga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada deriska ah taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xad dhaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka islamarkaana sababi karta waxyeello caafimaad. jaamac axmed muuse waa ku-xigeenka maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya. marka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airbortka oo kaleeto intay niman maaragtay technicians ka soo degaan ay baraf gargaracayaan ku reebargaranayaan iyagoo aan dee certified organization waxaa loo diraa MRO waxa la yidhaha maintenance repair organizations ayaa qabta iyagoo aan marin. marka waxyaabahaas oo kale dee waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey. waaye 4 nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan. Antonov 24, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 12. sharax diyaaradahan wax ka hadlaysan. waxa ugu weyn hadda aan hubno waxay tahay Antonov 2 iyada waa la joojiyey wadamo badan baa joojiyey. 26ka hadda iyaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. marka waa waxyaabaha aan hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu xaqiijino ICAO database-keeda iyo iyaasa. marka weli ma aanan karin waxa update soo kale ah iyo laakiin Antonov 2 oo kale already waa suuqa ka baxday. 26 waa la siiyaa oo iyaasa oo kale way bixiyaan. kuwa kalena waxa xaqiijin baan ku wadnaa hadeer ma ku dhihi karo already waa update waa indheed laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeyaan waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa hadeer. imise diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan? 10 waa ka yaryihiin baa aad ugu 10 kama ma gaari karaan qayb. maxay qaadaan ognahay hadeer airportka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku aragnay ilaa 5 meelaha ay gaarayaan. marka meelaha kale waddankana wax badan hadeer kama oga laakiin 10 kama banaanka inay ka yaraadaan mooyee. noocee weeye marka ma 12 shantaasi mise waa 24, 26, 30? kuwa xamar jooga waa inta waa 26 iyo 12.
maxay qaadaan? ma rayid bay qaadaan, ma xamuul bay qaadaan, maxay qabtaan? may waa cargo loo hadee wax raydin waa cargo loo isticmaala diyaarada. yaa isticmaalo adeegsada? waxaa kambaniyo waxaa jira hay-adahan khayriga oo UN-ka iyo ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada, oo diyaaradahan badanaaba waxay u badan yihiin waa diyaarad awoodda oo ciidan ahaan ruushka hore itixaadka soviyetka hore u isticmaali jiray. waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigooda oo wadankeena oo kaleeto aan rawig aan laamiya lahayn oo rafkaabay ka degi karaan. marka sida marka abaaru dhacaan ama webiyaal ifatahmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalaayo oo maaragtay way ka adkeysi badan yihiin diyaaradaha kaleeto. laakiin mushkiladda waxay tahay maadaama maintenance joogta aanay jirin, warshadihii qaybtooda oo repairka laga heli jiray aan jirin, engineero certified of reliable aanay jirin, yani waxyaabahaas oo kale. marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradahu marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale u sheegaya. waxyaabahaas ayaa ka maqan oo equipment on board la rabay inay diyaaradda electronic ahaan u saaran yihiin. marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in reliable nabadgelyadoodii ay laisku haleyn waayo oo ay halis u yihiin diyaaradaha kale hawada ku jira inay ku dhacaan. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan, loona qabtay wakhti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan Maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya. sarkaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durbo waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka Ukraine. mar kale Jaamac Axmed Muuse, ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya. diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhamaanayso iyo ilaa 15 bishii saddexaad baana bisha hadda ku jirto. waa gartay. marka waxay ku xiran tahay baaritaanka hadduu noo dhamaado baan insha Allah rajeynaynaa inaan iyagana waa u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay. baaritaankaas markuu soo dhamaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 cisho. markuu dhamaadana wixii ka soo baxaan la xiriirayna. haddii ay gaari waayo heer looga baahnina waxa u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadiisa Soomaaliya ku maraan. Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira Soomaaliya iyo wadamada kale ee caalamka. diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah Turkish Airways, Ethiopian Airlines iyo Kenya Airways. waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 10 sano ahna u soo adeegaya dadka diyaarada ay soo kireystaan shirkado Soomaaliyeed, kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyay galbeedka, gaar ahaan diyaaradda Boeing, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Soomaaliya. haddaba maadaama ay shirkadahan soo kireystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya, sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda? su-aashaasi waxaan hordhigay Xasan Xaashi Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya. diyaarad markaad soo kireysanayso kondishiinaha jira, diyaaraddu certificate fara badan oo dhowr iyo 10 ah oo certificate waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay. marka aada qiimaha ku heshiisaan kambaniga aada diyaaradda ka qaadanayso, waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan. markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kireystaa. intaa kaliya kuma xigee markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection iyaguna ay ku sameeyaan, oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsataa. waa gartay. waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee Soomaaliya, hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid wadamadii Soofiyeedka ha ugu badnaadaan Ukraine waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aad u liidata. maxaad kala socotaan arrintaa? marka hore amarkaasi sameeyay soo gaaray. arrintaas waa la soconaa runtii, hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa. amarkaasina ma ahan mid ayaga ku ego, waa mid caalami ah. diyaaradihii xilligii ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay da-doodu weyneed oo gabowga ah, inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in certificate-kooda la cusbay. marka shirkada oo caalamka laga diiday, maadaama aviation-kan uu soo kabanayo, iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan kartaa ay meesha.
waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha hawadu inay soo gaarto heer caalami ah. marka diyaaradaha ay maamulaysaah waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa. marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinjar la saaro. waaya marka diyaarad ruushku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yaysanba antonof ahane ood isticmaashaan may jiraan? ma jiraan totally ma jiraan. diyaaradaha aan isticmaalno waa diyaaradaha reer galbeedka. xasan xaashi maxamed waxa uu ii sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya waddanka oo gaadhaya ilaa 10 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra. burburku markii uu soo bilowday oo ay Somali Airlines meesha ka baxday waxaa bedelay dad isxilqaamay shirkado ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkeyd iyo marxaladihii dalka uu soo maray qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan iyo gobolada dhammaantood intaasba inay isku xiraan. sida iyagu isku xilqaamay ayaa jiray waana garan kartay waktigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay iyo amnixmadii jirtay. example masalan muqdisho haddaan kasoo qaadno markii garoonku uu xirmay garoomadii Balidoogle, Lambar Konton, Iseley garoomadaas ayaa dadka laga qaadayay si maaragtay gobolada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro. marka marxalada adkeyd way soo mareen, marxaladihii kale oo dib u heshiisiinta way soo mareen oo shirarkii Djibouti iyo meelo kale lagu qabanayay ayadana way kasoo qayb qaateen. waxay kasoo qayb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo bangi iyo wax walba oo lacagaha intayada lagu qaamay ayaa badeecada lagu soo iibsanaya. waxay kaloo kasoo qayb qaateen shaqaabo xiliyadii adkaa oo aan dalka shaqa ka jirin. waxay kasoo qayb qaateen isku xirkii gobolada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu ay aseeyeen gobolada ina way isku xireen oo dhanna way isku xireen. boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka kuwaas oo u safraya gobolada iyo wadamada dibadda ah. garoonka magaalada Muqdisho oo kaliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 5 milyan qof oo ah dadka safraya sida ay sheegeen mas'uuliyiinta diyaaradaha. Ibrahim Abikar Nuur waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya. waxa uu leeyahay hawlo badan ayaa u dhiman dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya. horto diyaarad markay kormarayso agreement yaa lala galaa FIR kaas macna flight information region ka markay soo gasho Soomaaliya waa in agreement la sameeyaa, service loo qabtaa, lacag la charge gareeyaa, diyaaradda nooceedii waxeedii kulli la controlaa, logbookskeedii waxeeda la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda iyadoo hawada maraysa cilad inta timaado wadanka kusoo dhacda khasaaro culus geysa maaragtay waa dhibkeeda leedahay. mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan annagana ma hayno, dabagelkeedii iyo awoodeedina ma hayno oo hay-ado waxaa loo baahay regulatory oo arrintaas sameeya. hadday wax dhacaanna baara sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board oo kale markii cilad ay dhacdo isla markiiba baaro wax allaala wixii diyaaradda iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho release ka samaysay ayaa loo dabagalaa. marka waxaan u malaynayaa aniga Haruun markaan isku dardaro cabirkayga wax badan ayaa maqan. diyaaradahaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii. waa garta ka waran diyaaradahan 20-30 sano lasoo isticmaalaya tayadooda maxaad ku qiimeyn leh? diyaaradda markasta waxay ku xiran tahay horto sidii check loo sameeyo. waxaa jira check badan, check A, check B, check C. checkga marka waxa waaye markii la gaaraba ilaa diyaaradda ay duusho ilaa muddo saacado kasoo qaad ilaa 3,000 oo saac 2,000 oo saac markay duusho kale waa in maaragtay qalabka qaarkood laga bedelaa. instrumentyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku uu isticmaalaya qaarkood way dhaceen waa in la bedelaa, qaar kale cusub la geliyaa. marka check waxay usii kala cusub yihiin kullama saacadaha ay bataanba check cusub baa imaanaya ama baaritaan kale cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaas oo dhan maaragtay in la record gareeyo la saxiixo ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaradoo dhan la furfuro oo ayada dhan la waxeeyo oo
la casriyey oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maaragtay dilaac ku jiro. marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in shortcutka ama meelo yaroo maaragtay laalaab sameeya waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelayaa. marka dabagalka intaa la eg, awoodda intaa la eg iyo aqoonta intaa la eg waxaan qiyaasaa weli waddankeeniisa. diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. waddankii ugu dambeeyey ee mamnuucay qaaradda Afrika waxa uu ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. su-aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan haddiiba ay diyaaradahani sidaasi u liitaan maxaa horey tallaabo looga qaadi waayey. Ibraahim Abikar Nuur ayaan weydiiyey dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn. wallahi dhib culus ayaa ka imaan kara. aniga mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maaragtay aan kasoo duulay 2 garoon oo isla waddanka gudihiisa ah. diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca kiimina ruush ahaayeen inay Ukraine ahaayeen ma aqaan. dawladda markaad fiiriso hataa 70 ku dhow. baylotadana waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 hadduu fiican yahay oo ilaa heersar uu yahay 63 64 uu jaak ka fariista diyaaradda. niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da'dooda qiyaasaysa 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maray lagu yiri bayloto waaye. marka waxaad arkaysaa meesha horta quality-ga duuliyaashii waxa ay jeegreentooda iyo waxooda inaysan jirin. diyaaradaha kulli shirkado Soomaali baa diilal la soo galay. diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood maaragtay airline-nada inta ka soo baxeen suuqa la iska soo geliyo markii horeba sii liitay. marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo pilot oo diyaaradii airline inta ka soo fariistay ilaan muddadii ka dhacday sanadkii waqtigii retirement-ii uu gaaray marka kuwan ku duulay passenger qaadaay iyo anigoo regulatory aanan lahayn arrintaa waxaa loo baahan yahay in looga fiirsado. ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan. waxay mas'uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga ah iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato waddankana dakhli iyo magacba uu u soo xaro.